بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا عشركي اللحاد مادة كاستمر كير عشركينا اللحاد وحان كو قادان دونا بيستي لويال كاستمر بيستي كاستمر وادي كرنا لويال كاستمر وادي كرنا سيدا عشركيني شناد ان كسو قاداني عشركيني شناد وحان كسو قاداني difficult customers macaamiisha dhibka badan taa beddelkeeda cashirkeena lixaad waxaa ku qaadan doonaa macaamiisha aad ku wanaagsan ee daacadda ah ee shirkadda mar walba dakhliga faraha badan soo geliya kuwaas ayaa waxaa loo yaqaanaa besty ama loyal customers haddaba maxay yihiin besty customers maxaa la yidhahdaa sidoo kaleeto noocyada kala duwan ee besty customers ayaan baran doonaa sidoo kale waxyaabaha kale aan ku baran doono cashirkeena lixaad waxaa ka mid ah 20 ways to build and maintain customer loyalty waa 20 qaab oo aan ku dhisi karno isla markaana aan ku joogteyn karno macaamiisha la yiraahdo loyal customer waa macaamiil faraxsan wada qanacsan dakhli fara badan soo galaya shirkadda haddaba maxay yihiin macaamiishani besty customers waxaa leenahay besty customers are typically defined as bahan waxaan ku qeexaynaa inay yihiin most profitable customers waa macaamiisha ugu faa'iidada badan ee shirkadda soo galaya oram waxaan dhihi karnaa the ones waa kuwa that spend kuwaasoo ku qarash gareeya the most money lacagta ugu badan ayay waxay ku qarash gareeyaan with your organization shirkadaada dakhliga ugu badan dadka ku qarash gareeya ee lacagta ugu faraha badan shirkadaada soo geliya ayaa waxaa loo yaqaanaa besty customers macaamiisha aadka u wanaagsan haddaba macaamiishan aadka u wanaagsan waxaa la yidhaahdaa macaamiil mar walba daryeel iyo tixgelin gaar ah in loo sameeyo u baahan haddaba noocyadooda aan fiirino noocyadooda waxaa ka mid ah macaamiisha la yidhaahdo loyal customer macaamiisha daacadda ah way faraxsan yihiin oo way ku qanacsan yihiin adeega iyo serviceka aad markaasi siinayso loyal customers waxaa la yidhaahdaa are besty kind of customers waa nooc ka mid ah noocyada ugu wanaagsan macaamiisha to have your business inuu shirkadaada haysatana aad ayay ugu wanaagsan tahay sidoo kale maxay ku fiican yihiin rebate waxaa loo yiraahdaa ama waxaa loo yaqaanaa wax la yiraahdo rebate customers macaamiisha mar walba soo laalaabta rebate mar walba waxay ku soo noqnoqonayaan shirkadaada rebate customers types waa nooc ka mid ah macaamiisha soo noqnoqota keeping coming back waxay mar walba joogteeyaan inay kugu soo laabtaan to you adiga for different product badeeco kala duwan si ay kaaga iibsadaan oo service ama adeegyo kala duwan si ay kaaga iibsadaan ayay kugu soo laalaabanayaan macaamiishani sidoo kale they seem waxay u muuqdaan to be embraced in ay la dhacsan yihiin with your brand magaca shirkadaada ayay la dhacsan yihiin magaca micnaysman namekaada ma ahane waxay la dhacsan yihiin serviceka iyo adeega iyo qaabka aad shirkadda dadku la macaamilaysaan iyo adeega aad bixinaysaan ayay la dhacsan yihiin sidaas darteed waa macaamiil daacad ah mar walbana way kuu soo laalaaban doonaan nooca labaad ee macaamiisha daacadda wanaagsan waxaa loo yaqaanaa lifetime customer macaamiil mar walba inta noloshiisa ay jirto kula joogi doono waxaa la yidhahdaa lifetime customers are your loyal customers waa macaamiisha daacadda ku ah but even better way kasii wanaagsan yihiin macaamiisha aan soo sheegnay ee loyal customerska ah ee aadka u qanacsan oo aadka u faraxsan ayay kasii fiican yihiin kuwani waxaa loo yaqaanaa lifetime customer marna makaa tegi doonaan inta shirkadaadu ay jirto ama iyagu ay nool yihiin they have opted waxa ay doorteen the lifetime subscription of your product or service in ay rukumasho noloshooda inta ka dhiban ayay waxay rukunteen adeegaada ama servicekaaga ayay markaas rukunteen waa nooc ugu wanaagsan macaamiil ay shirkadu leedahay iyaguna waxay ka mid yihiin macaamiisha besty customerska loo yaqaano macaamiisha saddexaad iyaguna waxaa loo yaqaanaa revering customer waa macaamiil lagugu soo xiray iyaguna dad kugu soo xiri doono hal macaamiil ayaa marka hore ku yimid wuxuu kugu soo xiri doonaa eheladiisa qaraabadiisa iyo saaxiibadiisa kuwaas ayaa waxaa loo yaqaanaa revering customer tixraac ayay leeyihiin oo dadkii kuu keena ayaa taqaanaa marka waa wax ugu wanaagsan oo macaamiisha marka lasoo jeedana loo sameeyo in ay sameeyaan revering ama referral wax la yiraahdo revering customers are the types of customers waa noocyada ka mid ah macaamiisha aad ku wanaagsan who are happy
kuwaasoo ku faraxsan with your product badeecadaada or service ama adeegaada and are willing waxayna rajeynayaan to refer you inay kugu soo refer gareen ama ay kugu markaasi tixraaciyaan ama ay ku keenaan to new customers macaamiil cusub ayaa la rajeynayaa macaamiishana referring customer la yiraahdo inay ku keenaan. macaamiisha ugu dambeysa ee ka mid ah macaamiisha aadka u wanaagsan waxaa loo yaqaanaa advocate customer, macmiil u doode ama macaamiisha u dooda. macaamiisha ayuu u doodaa, sidoo kale wuxuu u doodaa shirkadda. meel shirkadda wax loogu sheegay hadduu aragyo shirkadda ayuu difaacayaa oo u dagaalamayaa shirkadda. sidoo kale cabashada ay qabaan macaamiishana shirkadda ayuu kala hadlaa si shirkadda ay u xaleyso cabashada macaamiisha. marka waa qayb ka mid ah shirkadda ayuu ka mid ah macmiilkani. advocate waxaan yidhi advocateska ama kuwa shirkadda u dooda ama macaamiisha dooda are types of customers waa nooc ka mid ah macaamiisha who are by far way kaa fog yihiin oo macnaha shirkadda kama tirsano the most profitable client of yours waxayna ka mid yihiin macaamiisha inta badan ugu faa'iidada badan ee shirkadda ay leedahay. apart from being loyal waxayna ka mid yihiin ama qayb ka yihiin macaamiisha la yiraahdo macaamiisha daacadda ah ama lifetime customerska ayay ka mid yihiin. sidoo kale they are also your brand loyal advocate, sidoo kale waxay u doodaan oo ay dadka ka difaacaan waxa la yiraahdo brandigaada ama magaca shirkaddaada ayay ilaaliyaan. they talk about mar walba waxay ka hadlaan your company shirkaddaada, your service adeegaada at every chance mar walba ay jaanis helaan waxay ka hadlaan shirkaddaada adeegaada badeecada ay iibiso iyo faa'iidada ay leedahay. and they have already referred punch customers to you, sidoo kaleeto macaamiil fara badan ayay horay kuugu soo xireen macaamiishani. iyaguna waa nooc ka mid a macaamiisha aadka u wanaagsan oo in aad loo tixgeliyana loo baahan yahay. haddaba afartaas nooc oo macaamiisha aan soo sheegnay ayaa ka soo qaadan doonaa macaamiisha loyal customer ama best customerska loo yaqaano. haddaba si macaamiishaas aan u hayno waxaan u baahannahay inaan tallaabooyin qaadno. halkan waxaa inoogu qoran 20 ways to build and maintain customer loyalty, 10 qaab oo macaamiisha aan uga dhigi karno macaamiil daacad noo ah oo wanaagsan mar walbana shirkadda ku xiran noloshooda intay ka dhiman tahay. waxyaaba aan macaamiisha ku haysan karno waxaa ka mid ah over discount, inaan discount ama qiimo dhimis macaamiisha u sameyn. waxyaaba kaloo macaamiisha lagu hayn kara waxaa ka mid ah reward customer, abaalmarin inaan siino macaamiisha. sidoo kale promote your rewards program, sidoo kale inaad sare u qaado abaalmarinada ama barnaamijyada abaalmarinta la xiriira ee aad shirkadaada ama macaamiishaada aad siiso. haddii ahaan lahay isbuucle, haddii ahaan lahay bille, haddii ahaan lahay munaasabadle iyo waxyaabaa la midka ah. sidoo kale encourage inaad dhiirigeliso referrals, dadka kugu soo xiro macaamiisha dadka kuu keeno waa inaa iyaguna dhiirigelin siisaa. sidoo kale create point system, sidoo kale system macaamiisha ay barkulan u noqoto iyaduna waa in aad markaas samaysaa oo macaamiisha halkaas kala socotaa. sidoo kale ask feedback, macaamiishaada waa inaad weydiisaa feedback ama jawaab celin si aad u ogaato cabashadooda iyo waxyaabaha ay markaasi dhaliilaha ay qabaan. qodobka 7 waxaa la yiraahdaa ask the review, sidoo kale waa inaad weydiisaa faalayn inay shirkadda faaleeyaan oo ay wax falanqeeyaan shirkadda si aad u ogaato caqabadaha waxa la yiraahdo externalka iyo internalka shirkadda ka jira. sidoo kale qodobka 8 waxaa ka mid ah respond, inaad ka jawaabto feedback and reviews, sidoo kale feedback jawaab celinta iyo faaleynta shirkadda ay ka bixinayaan macaamiishana waa inaad ka jawaabtaa. qodobka 9 waxaan leenahay pay attention to the social sentiment, sidoo kale waa inaad dareen muhiima siisaa bulshada oo maxaa la yiraahdaa aad mar walba dareen ku bixisaa. pay attention waa inaad dareen siistaa to the social sentiment, dareenka bulshadana waa inaad dareen siisaa. bulshada iyo waxyaabaha ay dareemayso adiguna waa inaad la dareentaa. sidoo kale personalize waa inaad si shakhsiyan aad shakhsiyadaysaa. sales and marketing, waxyaabaha aad iibinaysana waa inaad iyo suuqgeynta aad sameynaysana waa inaadan group u sameynin, waa inaad u sameysaa as personalize, si shakhsi ah macaamiisha mid waliba waa inaad baahidiisa si gaar ah aad u dabooshaa.
qodobka 11aad waxaa la yidhahdaa maintain waa inaad joogtaysaa human connection xiriirka bani aadamka ama dadka la sameynaysana waa inaad joogtaysaa sababtoo ah system keliya dadka ha ku halaynin macaamiishaada system keliya ha ku halaynin ee si shakhsiyan ula kulan make yourself available sidoo kale waa in nafsadaada ama shakhsiyan waa in lagu heli karaa oo macaamiisha ay ku arki karaan waa inay su-aalo ku weydiin karaan sidoo kale prioritize waa inaad mudnaanta siisa emotional relationships xiriirada dareenka kiciya ee bulshada ay leeyihiin ama macaamiisha ay leeyihiinna waa inaad mar walbo diiradda saartaa sidoo kale speak your customers language waa inaad ku hadashaa luqadda macmiilkaada uu ku hadlayo luqadda macmiilka uu ku hadlayo waa inaad ku hadashaa macmiilkaada hadduu Soomaali yahay waa inaad Soomaali kula hadashaa hadduu Ingiriis yahay waa inaad Ingiriis kula hadashaa laakiin macmiil Soomaali haddii English kula heshid ama macmiil English ama wadan kale u dhashay aad Soomaali kula heshid macaamiishaas maadan qancinin sidoo kale be honesty waa inaad macaamiisha daacad u noqotaa oo aad honest noqotaa be flexible waa inaad